kawaran haddii lagu yiraahdo waxaad noolaan doontaa 2 sano oo kaliya adigoo 20 sano jira. Kawaran haddii jirkaaga oo dhan uu curyaamo balse maskaxdaadu noqoto mid bedesha fahamka bini'aadamka iyo caalamka. Maanta waxaan ka hadli doonaa Stephen Hawking, ninkii maskaxdiisu ka dheeraysay jirkiisa. Stephen Hawking wuxuu dhashay 1942 magaalada Oxford ee England. Wuxuu ka dhashay qoys aqoon jecel. Aabihiisa wuxuu ahaa dhakhtar cilmi baaris sameeya, hooyadiina waxay ahayd haweeney waxbarashada aad u qiimaysa. Stephen caruurnimadiisii ma ahayn arday aad u fiican bilowgii, macallimiintiisu mararka qaar waxay u arkayeen caajis. laakiin hal shay ayuu kaga duwanaa caruurta kale, waxayna ahayd su'aal aan dhammaad lahayn. Markii uu jaamacadda galay wuxuu bartay maadada fiisikiska, kadib wuxuu ku biiray jaamacad la yiraahdo Cambridge University. Halkaas ayuu si dhab ah u ogaaday caalamku ma ahan wax iska yimid, wuxuu leeyahay sharciyo. Laakiin nasiib darro, intuu waxbarashada ku jiray wax walba way isbedeleen. Markii uu 21 sano gaaray, dhakhaatiirtu waxay ku yiraahdeen waxaad qabtaa cudur burburiya murqaha jirka, waxaadna haysataa 2 sano oo nolol ah. Stephen Hawking wuu niyad jabay, wuxuu galay murugo, wuxuuna dareemay in noloshiisu ay dhamaatay. Laakiin goor dambe ayuu yiri, markii aan ogaaday in waqtigu yar yahay, waxaan fahmay inay jiraan wax badan oo mudan in la qabto. Halkaas ayuu ka bilaabay halgankiisii dhabta ahaa. Sanado kadib wuxuu lumiyay awoodii socodka iyo hadalka, wuxuuna ku xirmay kursi curyaan. Laakiin maskaxdiisu weli way shaqaynaysaa, xisaab, aragti iyo fikir qoto dheer. Wuxuu isticmaalay kombiyuutar cod ku hadla, hal eray ayuu u baahnaa si uu qoro hal jumlad. Stephen Hawking wuxuu caan ku noqday black holes ama godadka madow, wuxuuna cadeeyay in godadka madow aysan ahayn meel wax walba ay ku baaba'aan, isla markaana ay soo daayaan tamar yar oo loo bixiyay Hawking radiation. Tani waxay isku xiraysaa fiisikiis iyo aragtida quantum-ka, bedeshana fahamkiisa nisyaanada. Ninkan wuxuu rumaysnaa caalamku inuu ka bilowday Big Bang-ka, waqtigu laftiisu halkaas ayuu ka bilowday. Wuxuuna mar walba isweydiin jiray su'aasha ah maxaa jiray ka hor waqtiga. Jawaabtiisuna waxay ahayd mid caqli gal ah. Haddii waqtigu halkaas ka bilowday, su'aasha ka hor macno ma leh. Buuggiisa caanka ah A Brief History of Time, buuggani waxaa lagu turjumay luqado badan, malaayiin nuqul ayaa la iibiyey, dad caadi ah ayuu u sharxay saynis adag. Inkastoo dad badan ay dhammaystireen akhriskiisa, haddana wuxuu noqday buug taariikhi ah. hadalladiisii caanka ah ayaa waxaa ka mid ah maskaxdu waa sida muruq, haddii aan la isticmaalin way daciiftaa. Intay jirto nolol, rajo way jirtaa. Stephen Hawking wuxuu ahaa saynisaankii bedelay fahamkii bini'aadamka ee caalamka, gaar ahaan aragtida ku saabsan godadka madow. Ka hor intuusan soo saarin fikradiisa, saynisyahanadu waxay aaminsanaayeen in black hole-ku yahay meel wax walba ay ku baaba'aan oo aan waxba ka soo bixin. waxaana la rumaysnaa in haddii ay god madow wax ay galaan, ay weligood lumayaan jiritaankooda, xitaa iftiinka naftirkiisa. Hawking wuxuu jibiyey fikirkaasi caanka ahaa markii uu cadeeyey in black hole-ku uusan ahayn meel gebi ahaanba xiran, wuxuuna muujiyey in godadka madow ay sii daayaan tamar aad u yar oo ka dhalata dhaqdhaqaaqyo quantum ah oo ka dhacaya hareeraha godka. Tamartaani ayaa markii dambe loo bixiyey Hawking radiation, taasoo muujisay in black hole-ku uu si tartiib u yaraanayo, ugu dambeyntiina baaba'ayo haddii uu helo waqti ku filan. Fikradani cusub waxay si weyn u bedeshay fahamka sayniska, sababtoo ah waxay isku xirtay laba laan oo saynis ah oo horey loo maleynayay inay wada shaqayn karin: quantum physics iyo relativity-ga Einstein. Isku xirkaasi wuxuu furay albaab cusub oo lagu fahmo sida caalamku u shaqeeyo, gaar ahaan xaaladaha aad ku adag sida bilowga caalamka iyo godadka madow. Jumladda ama fikradda Hawking waxay sidoo kale dhalisay dood saynis oo qoto dheer oo ilaa ay maanta taagan. Su'aalo cusub ayaa ka dhashay sida ay xogta u sii jiri karto ama ay u lumi karto markay gasho black hole. Doodahaasi ayaa horseeday cilmi baaris cusub oo ilaa ay maanta socda, taasoo caddeyn u ah sida ay fikradiisu u saameysay sayniska casriga ah. Si fudud xitaa haddii loo dhigo, Stephen Hawking wuxuu cadeeyey in xitaa haddii meelaha ugu madow uguna qarsoon ee caalamka aysan ahayn kuwo aamusan, godadka madow ma liqaan wax walbo si aan raad uga harin, balse waxay la falgalaan caalamka ku xeeran. Taasi waa sababta jumladiisa iyo aragtidiisa loogu tilmaamo mid ka mid ah jumladihii ugu waaweynaa ee bedelay fahamkii bini'aadamka ee caalamka. Guntii iyo gabagabadii, Stephen Hawking wuxuu geeriyooday 2018 isagoo jira 76 sano. Wax ka badan 50 sano ayuu la noolaa cudur la yiri noloshaada oo dhan waxaa ka hartay 2 sano oo kaliya. Geeridaani dunida oo dhan ayaa ka murugootay. Saynisyahano, arday iyo dad shacab ahba way xuseen. Hawking wuxuu ina baray hal cashar: curyaannimo ma joojin karto riyadaada. Maskaxdaada ha xirin xitaa hadduu jirkaaga xirmo. Qof walba wuxuu leeyahay awood uu dunida wax walba uga bedeli karo. Haddii Hawking uusan quursanin, adigu maxaa kaa joojinaya?